tababaraha kooxda PSG dareenkiisu wuxuu noqday dareen uusan isceli karin maadaama dareenkaas 10 sano ka hor dhacday oo xanuunkeeda lahayd maanta oo xasuus galay gabadhiis yarta ahayd ayaa la joogtay 10 sano ka hor Champions League ay ku guuleysteen waxayna ku guuleysteen kooxda Barcelona kaasoo tababara ka ahay koobkii kalena uu ku guuleystay kooxda Barcelona taariikh ayuu ka soo dhigay Paris ayuu yimid oo kooxdan laacibiin weyn ayaa soo martay sidoo kale waxa jooga laacibka Kylian Mbappe kaasoo rabay kooxda inuu ka tago uu sii daayay sidoo kale wuxuu sheegay inaysan u baahnayn weeraryahanka sidoo kale isku filan yihiin koobkii ugu badnaay ayuu ku guuleystay sidoo kale wuxuu u qaaday Champions League gabadhiis yarta ahayd marka ayaa ka geeriyootay waxay u geeriyootay kansar ayadoo 9 sano jir ah gabadhiis marka calanka Barcelona ayaa waxay sureen bartamaha garoonka xilligaas 2015 tababarahan hadda kaligiis ayuu ahay oo sidoo kale taageerayaasha markay maqleen qisadiisa waxay sameeyeen sawir weyn kaas oo ay ku xisayaan gabadhiisi oo calanka ka taagayso sidoo kalena garoonka dhexdiisa ka taagayso calanka PSG u qiirooday wuxuu yiri gabadhayda dareen ay uga joogtaa